dalka Ruushka ayaa maanta Arbacada shaaca ka qaaday in dowladtus militari ay ku sameyn doonaan gobolka Crimeanka oo sanadkii 2014 ka qabsaday dalka Ukraine isagoo adeegsanaya nidaamka difaaca hawada ee loo yaqaano S-400 iyo sidoo kale dowladtus kale ay ku sameeyeen gantaalaha ridada dheer leh oo 100 kilomitir u jira xadka Ukraine. Dhaqdhaqaaqan ayaa ku soo beegmaya iyadoo reer galbeedku ay ka cabsi qabaan inuu Ruushku duulimaad ku qaado dhulka Ukraine. Ruushku ururinayo ilaa 100,000 oo dagaalyahan oo ciidamada Ruushku waxay ku sii jihaysteen dhankaas iyo xuduudaha dagaalku ka soconayo iyadoo Ruushka iyo Ukraine ay lahaatan beesha caalamku aanay soo dhaxgelin. Madaxweynaha Ruushka Putin waxa uu Arbacadan maanta kulan muuqaal la yeeshay dhigiisa dalka Shiinaha isagoo sheegay in isku xidhka Ruushka iyo Shiinahu ee fagaaraha caalamka uu noqday qodob keenaya xasiloonida caalamka iyadoo xiriirka labada dal uu yahay model dhab ah oo loogu talagalay inuu qarniga 21aad u hirgalo. Putin waxa uu arkaa labada dal ee ku kulmay in ay adduunka ka helayaan dhaleecayn iyo cadaadis kaga imanaya dhanka reer galbeedka. Waxaanu tilmaamay inuu ka qayb gali doono furitaanka ciyaaraha Olombikada ee ka soconaya magaalada Beijing. Waxaanu diiday in la siyaasadeeyo ciyaarahaasi kadib markii Mareykanku iyo wadamada badan oo reer galbeedi ay ku dhawaaqeen in diblomaasiyiin ay u dirayaan qaadaca ciyaarahaasi. Daba Moscow ayaa iyaduna ku wargelisay Beijing in horumar laga sameeyo amnigooda la ilaalin doono labadaasi ciyaaryahan ka kala socda dalka Ruushka iyo Ukraine. Putin waxaan ku baaqay wada xaajo degdeg ah sidaasi waxa sheegaya madaxweynaha dalka Ruushka waxa uu ku baaqaya wada xaajo degdeg ah oo la yeesho NATO iyo Mareykanka iyo wadamada siinaya in uu Moscow ay amaankooda halkaasi ay damaanad qaadi karto. wixii wararey halkaasi ka soo kordhay kala soco Iftiin Somali TV. Subeer Maxamed Subeer Galeyd wararka Iftiin Somali TV.